السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halka waxa kale Umar Awali Ibrahim dhageystayaasha qiimaha qaayalo ku soo dhawaada programkii aad hawada u barateen programkaas oo ahaan jiray ama badbaadada beelweynta Ciise waxa weeyaan caawa waxa khadka ku xidhan Farax Xaaji Ciise oo ka hadli doona saddexda wadan ee beeshu ay degan tahay iyo dhibaatooyinka sida ay u socdaan sanadadan soo socda sanadadiina dhaafay waxa reerku uu dhib badan kala kulmay dhinacyo kala duwan ayuu aad iyo aad caawa Farax ka falloonaya dhageystayaal ku soo dhawaada. السلام عليكم حاجي فرح شيخ فرح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حاج عمر هذه أبنكم السلام يا أنا قال إنه يسوع آدي وضلنا يسوع يا بعض عاو كان ليسو أدبان كو سلام إننا كو سودو برنامج بالوين تعيش أدبان كو سلام يا مرلبات إن تفاصيلها جود هذا قال إنه يشغله هذا كل جدول دمان أنت بوان سلام يا بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waxa la yiraahdaa Farax Xaaji Ciise waxaan joogaa dalka Mareykanka caawa halkan baaq baan ka soo gudbinayaa aan soo marinayo Hadagala News aan soo gudbinayo saddexda gobol ee ay beesha Ciise weyne degto waxaan ka hadlayaa caqabadaha ka taagan iyo mushkiladahaas wixii ka dambeeya ama sida ay u jiraan iyo inta meelood ee ay ka kala jiraan haddii aan ku horeeyo dhibaatada taagan maanta loo laayay dawada loo laayay ee inta badan soo jirtay waxay ka taagan tahay ta u weyni dalka Jamhuuriyadda Djibouti waxaanay saaran tahay oo dhibaatada ay dul taallaa shacabka iyo dalka dhibaatada taagan maanta waxa ay tahay dadkii wadaniga ahaa ee reer Djibouti inay taagan tahay iyo inay taagan yihiin baahitii u dambeysay dhibaatana ay u dheer tahay xaqoogana ay sheegan karin taladoodana aanay maaragtay heli karin qofku hadduu xaqu dir yahay waa in la caawiyo xuquuqda uu leeyahayna hoos loo eego haddii aanay ahayn in xuquuqdiisii la eego in maxay ahayd bal cabashadani iyo dhibkan taagan hoos loo eego wixii markaa bannaan qofkani hadduu au sharci ku joogo lala qaban karo lala qabto haddii aanay sharci ahayn inaa xuquuqda bini'aadantinimada ama maaragtay nolosha asaasiga ah aanay xaq ahayn ama aanay ahayn wax maaragtay laga hadli karo la yidhaahdo xaq uma lihid ilain imika dibaaba la leeyahay xaq uma lihid loona caddeeyo oo la yidhaahdo dambiila wata yaa jirta arrimaha noocaa ah kolka la isku wada geeyo waxaa ka soo baxay in ummadii ay noqoto ummad tidhaahda maaragtay ilaahay baan sugayaa iyo waktiga xukuumadda geelle iga qaaday ilaahay yaan ku harayaa yidhaahda maantana sidaan ognahay halka ay wax taagan tahay waxa weeye in ay sii korodhay uun xumaantii iyo baahidii oo dawo aan loo helin dalkana dhaqaalaha soo galay dadka ku nool uu ka badan yahay mushkilad kala imatay oo ah dalkii iyo dadkii in la kala fogeeyo dad cusub oo laga keenay Boorama iyo Hargeysana ay dalkii farabaas ku hayaan loona fasaxay in la yidhaahdo warqadahana free looga dhigo shaqooyinkana free looga dhigo noloshii bulshadii dalka lahayd ay ku nooleydna ay hantiyaan dadkii dalka lahaa xaqana u lahaa inay nolosha asaasiga ahee ay bulshadu ku nooshahay ay intaba waayaan taasina ay dhacday ninkiisu dilayaa qaylo male
hadday dadkani macaarid u yihiin oo maamulkayga ay rabin dee waan bedelayaayoo dad kale oo aniga ii hoggaansanoo waxaan idhaahdaa yeela iyaan dul keenayaabaa dhacday dalka waa la nila leeyahayoo dadka waxaa la yidhaahdaa jabuutiyaan iyuu ku dhawaaqay hogaamiyaha dalku taana waxay noqotay mid aada iyo aad meel au ku socdo dadkii gelisay hoosu dhac aada iyo aad nacam looga fiirsado dadkiina ay isku maqan yihiin wixii ay ka yeeli lahaayeen wixii dhacana wax isagu uu keenay ay tahay dadkii waxay leeyihiin jabuutiyaan baan nahay waxaana dhacda in aanay jabuutiyaan ahayn aanay u dhalan ku dhalan una dhalan taas cimrigeedu ma raagayo waa intuu isbedeluni u dhacayo laakiin dadka waxaan leenahay dalkiina inagaa lehe 5 farood ku qabsada dadka maanta inila sheeganayo jabuuti baan nahay inilana wax maad aragtay aad ka maqashaan aanay jirin iskana celiye taasi waa taa waxaa la sheegaya baaqi laga soo dirayo midnimo iyaan nahay oo midnimo dadka maad aragtay qabyaaladda ku hadlayaay ee dadka kala qaadqaadayaay waa dad aan maad aragtay jirin waxaan jirin ninka waddankiisa lala sheeganayo ninka ubadkiisa iyo reerkiisa halka uu ku nool yahay ciidiisa gaarka uu leeyahay la seejinayo la leeyahay waan kula leeyahay maanta min reerkii ma sheegan kara Boorama ma sheegan kara Hargeysa Somaliland labada gobol ee Seylac iyo Luqyaan ku leenahay iyaa loo diidan yahay beesho la leeyahay ma sheegan kartid Somaliland annaguna wax Somaliland la yiraahdo ma aqoonsanin waxaan aqoonsanahay Soomaali weyn dalka Soomaali weyn iyaan anagu ku leenahay dal wax Somaliland la yiraahdo ma aqoonsanin adduunyada ma aqoonsana taa halkaasaan kaga gudbiyaa wax Jabuutiyaan la yiraahdo marnaba hayeelina iyaan leenahay dadka reer Jabuutiya waaye talabaad gobolkan aan ku leenahay Soomaaliya muddo badan iyo aw maaragtay ay wax ka soo noqnoqdaan ugu dambeyn wixii hore dhacay la ogaa waxa ka dambeeyay odaye erga oo baahdi reerka ah iyo Hargeysa tagay bishii May soo dhaafnay 18keedii iyo erga u tagay Boorama cid albaab ka furto iyo cid la hadashay iyo cid soo dhaweysay ma leh ilaa maanta aan joogno December ay tahay 5 way joogan Hargeysa cid lama xaajoon cidina lama hadal waxa ay dhaqana maaha dadnimana maaha xukuumadda isku sheegtay Somaliland baa la mayraa inayna ahayn wax ma aragtay ama dawladu qalma ama dhaqan u qalma ama ma aragtay la oran karo waa bili aadantinimada iyay meel ku leedahay maaha aad baan u cambaaraynaa waxaan leenahay wixii hadda ka dambeeya dhaqan iyo xukun dawladeed bal midka la inagu soo hagaago waa inaad sheegtiin taasaan kaga baxay saddexaad waxa weeye gobolkan city iyo iminka dhibaato weyn ka taagan tahay ee deegaanka Soomaalida Itoobiya qaybta ay beeshu degto beelweynta Ciise oo dulmi weyn iyo talaxumo lagu hayo dadkii deegaanka lahaa dulmigaas oo ah beel walba waxa loo ogol yahay beelaha dega Itoobiya ee dhowriye 80 qoomiyadooda inay beel walba shirto shir nabadgelyo ay shirto taladeedana baahiyadeeda wixii meesha ka soo baxa ay u gudbiso cid ay qusayso aanan ma aragtay nabadeed beesha shirtay xisbuli meel la yiraahdo ku shirtay boqolkii iyo boqorkiiba shir gudoomiyay faa'iido dawladda federaalka iyo dawladda kililka intaba
oo ay soo saareen wixii baahida ahaayee loo fasaxay ee ay ka shireen bay soo saareen waxaa la yidhi xaquma lihidine maxaad u sheegteen shirkiina waxaa lagu sheegay in la yidhaahdo wixii ka qayb galay waan xidhaynaa wixii ka qayb galay macal ugaaska 44 oday gabdhaha ah iyo maxay ahayd boqolkii oday intaba waan xidhaynaa la yidhaahdo intii horeysana la xidhay la sheegayana in lagu xukumay 3 sano oo xadhiga odayaashaas xaqooga iyo taladooda iyo wixii sharciga Itoobiya u yaalay aw dhigay cid walba inay iyagu iskeeda isku maamusho iyadoo shir nabadgelyo iyo talo nabadgelyo wada taas iyay noqotay tii taahayd wax ka duwan iyo beesha loola isticmaalaya waxa ka duwanna waxa weeye beelaha kale way shiraan sidan imika 2 week in ka badan waxaa shiraya jidwaaq waxay ku shirayeen meel harooriis la yidhaa cidi kama hadal oo lama odhanin jidwaaq uu shiray 2 cisho ka hor waxaa shirayay absame wuxuuna ku shirayay magaalada qabri bayxa la yidhaa cid ka hadashay iyo cid dambiilaatiin tidhaahdaay ma jirto waxaa jiray waxa weeye in beesha ciise weyne la leeyahay mana shiri kartid dhulkaagii iyo degmooyinkaaga lagu diraya canfarna kama hadli kartid ugaaska beelweynta ciise ma shir guddoomin kara cidba xaqna uma leh saamiga ka maqan beesha ma sheegan karto waxa laala wixii baahi ah ma sheegan karto waa inay aamusnaato waa inay kililka aanay waxba weydiisanin waxba aanay usoo jeedinin siyaasiyiintoodu waa inay wax qaban siyaasiyiintooda waa inaanay odayadu la hadal waa inuuna ugaasku la hadal waa in haddii siyaasiyiinta ula hadla la xidho waa in ganduhu dhalinyarada ka soo jeeda deegaanka gobolka city ee ugu jirta kililka waa inaanay wax qaban oo dad looga keeno gobolka ka shaqeeya gobolada kale ay ogaadeen war waxaan cadaalad maaha cadaalad darri iyaan ku noolahay shacabkuna uu ku nool yahay taladana tala maadarta hadii loo dul qaadanayo maaha in badan baa la dul qaatay waxaana meesha laga maamulayo iyo sida ay u socoto iyo halka ka dambeysaan ognahay Ismaaciil Cumar baa arrimahan faraha kula jira 3 meelood ee meel xukumo Somaliland iyo gobolkan kililka intaba isaga gacanta kula jira wuxuu ku madax adeegaya oo uu ku maadaragtay aad iyo aad ugu dhiireeyay in beeshu wax dana hoole ay leedahay aanay ka gungaadhin aanay iskugu yiman wax isweydiin taladeeduna ay noqoto talo burburto oo shanshada iyo bawdada ka jabta dhulka iyo dhaqanka iyo xeerkana halka lagu luuso oo maadaragtay lagaga farabaxo dad kale iyo maadaragtay u diyaarshay dadka inay maadaragtay ku wareejiyo taasina ma dhacayso daraad walaalkii baa ka soo baxay madaxweyne Ismaaciil Cumar Djibouti isagoo ku socda tirdhabiya jigjiga wuu tagay tirdhabiya jigjiga wuxuu soo iclaamiyay odayadan iyo dhalinyaradanba in la qaado shirkii casbuli wax alla wixii ka qayb galay oo dhan in la xidhxidho beesha ciise weyne waxaan usoo jeedinaynaa baaqani waa baaq aad iyo aad xasaasiyad iyo cadaaladiisu ay tahay mid waxtar leh qof ma dulmayno qofna kuma duulayno waxaan bayaaminaynaa waxa beeshu xaq ay u leedahay
waxay xaq beeshu u leedahay inay shirto, xaq waxay beeshu u leedahay dalkeega inay ilaashato, xaq waxay beeshu u leedahay xuduudaheeda inay sugato, walaa Somaliland walaa maad aragtay kililka intaba wixii ay leedahay beeshu inay sugato iyaan aan maad aragtay aan aad iyo aad aan ugu boorinaynaa. waxaa kale oo aan shaacinaynaa oo aan sheegaynaa in cumarow aad iyo aad iyaad u dhex fadhidaa ceeb aan kaa go-ayn abiidka noloshaada iyo maaragtay dhimashadaada intaba aanan kaa go-aynin oo aanad kii kaa soo jeeday aanad waxba wahayn, ka aad tahayna aada waxba wahayn, meel kasta ooy beeshu leedahayna aada faraha kula jirto, tala xumana aada u hayso beesha oo aanad tala u haynin, oo aad tahay nin aada iyo aad xagga dambe taladiisu ay gablan tahay oo aanan taladiisu ay ahayn tala maad aragtay dhiiran oo reeru ku tashan karo. waxaa tahay mid waxaa la yidhi dhaqan Soomaaliga awrka baarqabka geela lagu daro waxaa laga fiiriyaa tagiisa iyay tiraa Soomaalidu, qaanka geela daba socda yaa laga fiiriyaa baa leeyahay. hadduu qaan badani geela daba socdo baarqabka geela waa loo daayaayoo uu tagsan yahay, hadduu bilaa qaan yahay oo waxba ay geela daba soconna tag xumo iyuu leeyahay baarqabka waa laga gowracaa geela. taladaadu waa taa aad baad ugu tagxun tahay reerka, siyaasi uma roonid, odaya dhaqameed uma roonid, ugaas uma roonid, dalna uma roonid. siyaasiga wixii ku garab joogo waa dishaa, wax kaa dambeeyana maba ogolid, wax kula joogo oo kula taliyana ama kaa kala taliyana ma ogolid. waxaaga dhan baa ah khasaaro lagu daray. meel aad ku wada dhulka, meel aad ku wada beesha, meel aad ku wada taladaada lama yaqaano. iminkana dalkii Jabuuti waaba tiri Jabuutiyan baa la yidhaa oo midnimo weey dalka Jabuuti waa tiri. waxay wax kaa soconaya maaha. haddeed waxaad caddaysatay in laysa kaa qabto. haddaad sii joogto meeshan wad baan ku daynaynin oo gabowaaad geerka u saaran tahay. haddaad istaba qabato oo aada isku maydha intan kuu hadhay waxba maahine intaa yaree hadhay, haddii aada istaba qabato oo ugaaska faraha aad kala baxdo, ood gandaha faraha kala baxdo, ood odaya dhaqameedka kale faraha kala baxdo, oo dhalinyarada faraha kala baxdo, oo dalalka uu leeyahay beesha ay leeyihiin faraha kala baxdo, laga yaabaa waan in waxun lagu helo. hase yeeshe maanta wax alla wax lagu helayaa ma jirto. waxaa tahay geed weyn oo bilaahada. geed weyn oo bilaahadana waa la iska gooyaa. maxaa lagu fali? aada iyo aad iyaad u tahay hulo dalool, liidar khasaara oo beeshu ay ku gablantay baa tahay. meel walba waxaa ka soo yeedhaysa in aada khasaaro kula jirto, marnaba faa'iide aan lagaa helaynin. geedkaa weyn ee hadh lahayn ee bahalogaleynka aad tahay, waxaan ku leenahay beesha dhaaf, dalka dhaaf, ummadda dhaaf, sidaa iyo nabadgelyo. dadka maxay ahayd ay dhegaysanaya baaqaana waxaan ini leenahay beelweynta ciise, dhulka inigaa leh, talada inigaa leh, ugaaska inigaa leh, xeerka inigaa leh, ganda khayrana inigaa leh. shirkii casbuli iyo go-aanadiisii waa inaad taageertiin. ciise weyne nagu filan, dalka ciisuhu nagu filan, ugaas rooble nagu filan, ganda khayrana nagu filan. cid allaala cid aan wax ka danaynayno
ama aan ka rajaynaynay ma jirto. golaha sare ee looga taliyay uu gudoomiye ugaasku iyo looga taliyaa beelweynta kalsoonina aan ku qabnaa waxay noo taliyaan ay noogu taliyaan aan ku go'naa go'aanadoodii iyo shirkii casbulina marnaba beeshu ka laaban mayso. odayadan la xidhayna si degdeg in loo sii daayaan doonaynaa, si degdeg in loo sii daayaan ayaan ku baaqaynaa. wax dambe oo la xidho oo dhalinyarada iyo odayada xidhanna aan ahayn kuwaana waa annaga ku baaqan in la soo daayo, in faraha la isla gali oo madaxa la isla gali oo la isqabsan oo balaaya ay qiiqi iyaan sheegaynaa. haddii la sii dayn waayo dhalinyarada iyo odaya dhaqameedka ugaaska iyo gandaha waan xukunay 3 sano aad tidhaahdeenna wallaahi oo billaahi oo tallaahi in loo dhowaan karin. tadhacda cabdiilayow farahaad gelin, ogaadeen baad aragtay ciise maad arag. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.